بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة إلى آخر الآيات. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سورة عبسة suuradan waa makiya aayadaheedana waa 42 aayadood. bismi illaahi araxmaani araxiim. cabasa wuu wajituway nabiga calayhi salaatu wassalaam, watawallaa wuu jeestay limaada an jaa'ahu liajli an jaa'ahu inuu u yimid darteedii ayuu la wajituway oo la jeestay alacmaa kii indhaha la'aa markuu u yimid. macnaha waxaa weeyaan nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu ku mashquulsanaa quraysh gaaladoodii oo madaxda kuwa ah. islaamka ayuu ugu yeeraayay. nabiga wuxuu damcaayay calayhi salaatu wassalaam islaamnimadoodii inay soo islaamaan. taas ayuu nabigu rajaynayay calayhi salaatu wassalaam. nabiga sala allahu calayhi wasalama isagoo ku dhex mashquulsan kuwaas ayaa waxaa u yimid cabdullaahi bnu ummi maktuum alacmaa, wuu indha la' yahay. markaasuu ku yidhi yaa rasuula allah callimnii mimaa callamaka allah. rasuul ilaahow ibar wixii ilaahay ku baray wax iga bar. maskiin cabdullaahi ma oga nabiga inuu mashquul yahay calayhi salaatu wassalaam liannahu acmaa, waayo wuu indha la' yahay. marka waxbarashadii ayuu jecel yahay. yaa rasuula allah callimnii mimaa callamaka allah. dadkeena indhaha la haayeenna waxbarashadiiyaa laga la'yahay. indhahuu la'yahay markaasuu leeyahay ibar wixii ilaahay ku baray wax iga bar. in badan buu ku celceliyey arrintaas. nabiga wuu nacay calayhi salaatu wassalaam hadalkiisa inuu jaro, hadalkiisa inuu kala gooyo ayuu nacay. markaasuu xoogaa yar wejigiisuu nabigu tubay calayhi salaatu wassalaam. wuu ka sii jeestay cabdullaahi ibnu ummi maktuum. odayaashan buu qaabilay, islaamku u sharxayaa. ayagana xoogaa way jilceen oo way soo dhowaadeen. kolka wuxuu isleeyahay inay soo islaamaan. kuwaan hadday soo islaamaan naarta way ka badbaadayaan. marka islaamnimadoodii ayuu damcayaa, rajaynayaa calayhi salaatu wassalaam. ilaahay marka aayadahan buu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala. kolka waxaa weeyaan diintan dadkaa u baahan, diintan dadkaa u baahan, dadka u baahan ayaa loo sheegayaa, dadka u baahan ayaa loo sheegayaa. dadka aan u baahnayn looma sheegayo. maxaa yeelay diinta adigaa u baahan maahee diinta kuuma baahna adiga. kolka ilaahay ayadahan uu soo dejiyey. nabigan xumaan kama baaheen calayhi salaatu wassalaam. wuxuu damcaayay kuwaan inay soo islaamaan, ilaahay ay gartaan, ilaahay ay rumeeyaan, lafahoodii naar inay ka badbaadaan. cabasa wuu wajituubay, watawallaa wuu jeestay. ilaahay tabaaraka wa tacaala jaceelka nabigiis uu jecel yahay, hadalka nabiga toos wejiga lagama saarin. lama dhihin cabasta watawallayta. muxamedow waa weji tubtay, waad jeesatay.
هذا الكسيتوس وجه الله مسارن عليه الصلاة والسلام تا waxay tusinaysaa nabigeena maqaamka uu jooga عليه الصلاة والسلام iyo ilaahi jalla wa ala soo u jecel yahay nabigiisa sallallahu alayhi wa sallam abasa ayaa la yiri bas wuu wajitubay yaa waay lama sheegin ee abasta wajiga loo masaarin waa wajitubtay waa jeesatay lama dhigin abasa wuu wajitubay wa tawalla wuu jeestay limaada an jaahu liajli an jaahu inuu u yimid darteedii al-a'ma ki indhaha la'a magaciisa maxaa loo sheegi waayey al-a'ma maxaa loo yiri li'annahu macduur weeyaan maxaa yeelay ma arkayo waxa nabiga uu ku mashquulsan yahay calayhi salaatu wasalaam hadduu arki lahaa nabiga inuu mashquul yahay hadduu ka leexan lahaa moogtay marka macduurnimadiisa la sheegay al-a'ma ki indhaha la'a markuu u yimid daraadeedii wamaa yudriika ayadaha markay soo degeen waxaa la sheegaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam markuu arka Abdullah ibn Maktum go-iisa cimaamadiisa dhulka u fidinay alayhi salatu wassalam uu soo dhaweynay markaas uu dhihi jiray marhaban biman aatabani fihi rabbi soo dhawow kan rabbigeegi asaga dartiisa igu dagaalay igu eedeeyay soo dhawow uu soo dhaweynay nabiga alayhi salatu wassalam wama yudrika maxaa ku ogeysiinayo la'allahu inuu mudan yahay in doolahaas yazaka inuu isdahirinayo wama yudrika maxaa ku ogeysiinayo nabi muhammad alayhi salatu wassalam bihal al-a'ma in doolaha xaaladiisa maxaa ku ogeysiinayo la'allahu inuu mudan yahay yazaka inuu isdahirayo oo wuxuu rabaa cilmigan iyo garashadan uu ka qaadanayo inuu isku dhahiro oo ama sayadakaru inuu waantoomo oo fatanfacuhu ay anfacaysa markaas ay fatanfacuhu ay anfacdo adh-dhikra waanadu ay anfacdo oo ama sayadakaru waantoomo fatanfacuhu ay anfacdo adh-dhikra waanadu ay anfacdo markaas amma man qofkii istaghna deeqtoomay oo iimaanka ka deeqtoomay can al-iimaani bika wa min culumika adiga inuu ku rumeeyo iyo adiga culumtaadi qofkii ka deeqtoonaaday fa anta adiga nabi muhammadow tasadda waad u banbixaysaa lahu qofkaas ayaad u banbixaysaa wamaa calayka korkaagina ma ahaanin ba'sun baas ma ahaanin allaa yazakkaa inuu isdhahirin waayey adiga korkaagi baas ma ahaanin amaa man qofkoo istaghnaa deeqtoomay can al-iimaani bika wa can culuumika adiga inuu ku rumeeyo ka deeqtoomay culumtaadina ka deeqtoomay fa anta adiga tasaddaa waad u banbixaysaa lahu qofkaasaad u banbixaysaa wamaa calayka korkaagi ma ahaanin ba'sun wax baasi dhibaato korkaagi ma ahaanin nabi muxamed calayka asalaatu wassalaam allaa yazakkaa kaas deeqtoomay ee iimaanka ka deeqtoomay culumtaadii ka deeqtoomay inuusan isdaahirinin korkaagi waxba baas ma ahaanin dembi korkaagi ma ahaanin lagu qaban maayo muxuu uu soo islaami waayey gaalnimadaas muxuu ugu dhintay adiga lagu qaban maayo waad gaarsiisay bas khalaas wa ammaa man qofkii jaa'aka adiga kuu yimid yascaa xaal isagoo ordayo walxaal huwa isagoo yakhshaa ilaahay ka cabsanayo fa anta adiga talahaa waad ka mashquulaysaa canhu xaggiisa waad ka mashquulaysaa qofkii kuu yimid isagoo ordayo cilmiga raadintiisa ku ordayo ee isagoo ilaahay ka cabsanayo subxaanahu wa tacaala qofkaasna waad ka mashquulaysaa sida cabdullaahi ibn maktuum oo kale kallaa sidaas ha samaynin yaa rasuul allah innahaa aayadahan tadkiratun waanin weeye innahaa aayadahan tadkiratun waanin weeye ama innahaa qur'aanka tadkiratun waanin weeye innahaa qur'aanka maxaanu leenahay innahaa haadaas waa iska mu'anath innahaa ta'niith maadaama haadaas ay isticmaalayso qur'aankana mudakar uu yahay waxaan sidaa u leenahay qur'aanka loogu celinayaa lianna alkhabara mu'anath waayo khabarkaa mu'anatha tadkiratun khabarka soo ma jeedid tadkiratun khabarkaa mu'anatha saa daraaddeedi marka indhaha qur'aanka waa loo celin karaa maxaa yeele khabarka tadkiratun ah khabarkaasaa mu'anatha innahaa qur'aanka tadkiratun waanin weeye
أما إنها آيدها تذكرة واننوي فمن قفك شاء دونه ذكره وقوان سميا قفك دونه قرآن كان وقوان سميا في صحف warqado dhexdiisa ayuu ku sugnaaday quraanka suxufto mukarramatin lama muusay suxufto marfuucatin ay marfuucati alqadri walmakani qadarkoodii makaankoodii la kor yeelay suxufto mutahharatin la dahiray fi suxufin warqado ay ku sugan yihiin aayadahaas suxufto mutahharatin lama muusay mukarramatin lama muusay suxufto marfuucatin la kor yeelay qadarkoodii sharaftoodii makaankoodii la kor yeelay suxuftoo mutahharatin la dahiray suxuftoo biaydii safara malaa'ig safiiriin ah gacmahoodii ku sugan biaydii safara malaa'ig oo safiiryaalo ah gacmahoodii ku sugan ilaa waxay safiiryaal u yihiin ilaahay iyo rusushiisay safiiryaal u yihiin malaa'igtaas ayagaa gacmaha ku haayo malaa'igtaasoo kiraamin suusuuban malaa'igtaasoo bararatin baariyaal ah idan aayadahan dadkaa u baahan ee aayadahan dadka uma baahna aayadahan ayadii dadka uma baahna ee aayadaha dadka u baahan kolka maadaama qiimahan iyo sharaftan uu leeyahay qur'aanka waa in dadka ay soo doontaan qutila al-insaanu maa akfarah qutila al-insaanu insaanka ayaa lacnad lagu dilay maa maxay baa akfarahu gaalka yeelay insaankan qutila al-insaanu insaanka lacnad baa lagu dilay maa maxay baa akfarahu kaafir ka yeelay insaankan maxaa kaafir ka dhigay maxaa gaal ka dhigay ama maa shay la yaab leh akfarahu gaal ka dhigay insaankan maada tacajub ama istifhaam labadu baa ku wadi kartaa min ayi shayin shaygee buu xaggiisa khalaqahu ilaahay uu ka abuuray insaankan horta insaankan gaalka uu iskibirinayo horta maxaa ilaahay uu ka abuuray asalkiisa ha fiiriyaba min ayi shayin shaygee buu xaggiisa khalaqahu ilaahay uu ka abuuray insaankaas waa lagu sii cadaynayaa fiir min nudfatin dhibic mani ah ayuu khalaqahu ilaahay uu ka abuuray faqadarahu ilaahay wuuna qadiray min nudfatin dhibic mani ayuu khalaqahu ilaahay uu ka abuuray insaankan faqadarahu wuu ka qadiray caloosha hooyadiis intuu ku jiro ayuu xaalada ilaahay ku qadiray tabaaraka wa tacaala kol waa dhibic mani kol waa calaqa xinjir ilaa kol waa cadhilib ilaa khalqigiisa abuuristiisa ay ka dhammaystiranto ilaahay caloosha hooyadiisuu ku qadiray tabaaraka wa tacaala risqigiisa ayaa la qadiray ajashiisa ayaa la qadiray camalkiisa ayaa la qadiray inuu shaqi yahay ama inuu saciid yahay ayaa la qadiray uma kadib asabiila wadadana yasarahu ilaahay wuu u fududeeyey wadada uu ka soo baxayo caloosha hooyadiisa markuu khalqigiisa uu ku dhammaystirmo oo ilaahay uu ku abuuro fii axsani taqwiim wadaduu soo mari lahaa meeshuu ku dhalanayo wadada uu ka soo baxaayana ilaahay baa u taysiiriyey wadadaa yaraanteedisay u yar tahay iyo insaankan sidaan u dhammaystiran u weyn meesha uu soo dhexmarayo uu ka soo dhexbaxayo ilaahay baa u taysiiriyey inuu meeshaa soo maro ilaahay awooddiisa weeyaan marka nin meeshaa kaadidaas ka soo bixayso soo maray inuu iskibriyo isweyneeyo maba ahaba xasanulbisri ayaa wuxuu dhihi jiray raximahu llahu tacaala kayfa yatakabbaru man kharaja min sabiili lbawli maratayn soo u kibrayaa qof ka soo baxay meesha kaadida ay soo marto 2 jeer soo maray ilaan kol waxa weeyaan markii mani uu ahaa dakarka markuu ka soo baxay koow iyo markii hadeertaan uu dhalanayo 2 nin 2 jeer meesha kaadida ay ka soo baxayso soo dhaxmaray soo u kibraya inuu kibra ma baaha hadan asalkaaga waxa laga abuuray bal fiir idan waxa ku saaran waxa weeyaan ilaahay inaad baari u noqotid ilaahay inaad awaamirtiisa qaadatid ilaahay inaad jeclaatid tabaaraka wa tacaala wuxuu ka reebay inaad ka fogaatid uma kadib insaankan adduunyadaana la keenay ma adduunyadaan uu isaga waaraya may uma kadib amaatahu wuu dilay fa aqbarahu wuu qabriyeeyey oo qabri buu u yeelay uma kadib amaatahu wuu dilay fa aqbarahu
إلهي قبر بو يالي إنسان كان إلهي ودلي كدبن قبر يالي قبري وعلى قبريين يا sida dugaagtoo kale ama xayawaanaadkoo kale markay dhintaan baktigooda meelahaas iska yaalo insaankan ilaahay kama dhigin tabaaraka wa tacaala insaankan ilaahay wuu karaameeyey wuu cizeeyey wuu sharafay meydkiisana waa la karaamaynayaa waa la asturayaa karaamatul mayiti dafnuhu weeyaan meydka karaamadiisa waa in la aaso ثم كتب إذا شاء إلهي هدو دونه أنشره وصبحنا goortuu ilaahay doono ilaahay wuu soo bixinayaa intuu nooleeyo ayuu ilaahay bacthi iyo xisaab iyo abaalmarin uu u soo saarayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay wakhtiguu doono weeyaan maxaa yeelay nin og ma jirto xilliga qiyaamaha ay dhacayso laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal xilliga saacadda qiyaama ay dhacaysa ilaahay unbaa ka warhaayo subxaanahu wa tacaala kallaa ha ka joogo gaalkaas sidaa ah oo iskibirinayo isweyneynayo kibirkiisa ha ka joogo lamaa yaqdi weli ma uusan gudan insaanka maa amarahu ilaahay wixii uu amray weli ma uusan gudan adiga insaan yahow ilaahay wixii uu ku faray ma gudan ee seed u kibiraysaa marka waa iskibirinaysaa ilaahay wixii ku amrayna ma aadan gudan kallaa ha ka joogo insaanka gaalka ah kibirkaa isla weynimadaas ha ka joogo lamaa yaqdi insaanka weli ma gudan maa amarahu wixii ilaahay uu amray ma gudan falyandur haddaba ha fiiriyo alinsaanu insaanka ha fiiriyo ilaa طacaamihi raashinkiisa ha fiiriyo bal haddana fiiri nicmooyinkii ilaahay uu ku siiyey ayaa lagu xasuusinayaa insaankan ha fiiriyo dacaamka uu cunayo ma asagaa samaystay falyandur اlinsaanu insaanka ha fiiriyo ilaa طacaamihi raashinkiisa ha fiiriyo bal wuxuu cunaya ha fiiriyo annaa anaga sababnaa waan shubnay almaaa biyaha waan shubnay sabban shubid ayaan shubnay biyaha roobka ah anagaa cirka ka soo dejinay anagaa dhulkan ku soo shubnay uma kadib shaqaqnaa waan jeexnay alarda dhulka ayaan jeexnay shaqan jeexid ayaan jeexnay dhulka markii roob aan ku daasiinay dhulka ayaan jeexnay miro iyo badar inay ka soo baxaan daraaddeedii allahu akbar faanbatnaa waan soo dhalinay fiihaa arlada dhexdeedii waxaan ka soo dhalinay xabban badar ayaan ka soo dhalinay wa cinaban iyo canab ayaan ka soo dhalinay wa qadban iyo waxyaabaha qorjowda leh ayaan ka soo dhalinay wa zaytuunan zaytuun ayaan ka soo dhalinay wa nakhlan iyo geetimireed ayaan ka soo dhalinay wa xadaa'iqa iyo beero ayaan ka soo dhalinay beerahaasoo gulban tuun leh ama tuun waaweyn wa faakihatan iyo faakiha ayaan ka soo dhalinay wa abban iyo daaq ayaan ka soo dhalinay wax xoolaha ay daaqaan faanbatnaa waan soo dhalinay fiihaa arlada waxaan ka soo dhalinay xabban badar ayaan ka soo dhalinay wa cinaban iyo canab ayaan ka soo dhalinay arladan wa qadban iyo waxyaabaha qorjowda leh qadbiga waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qorjowda leh sida baqashoo kale markii la cunayo qarjowda leh sida baqasha karootada iyo waxyaabaha la midka ah qadbi weeyaan wa zaytuunan iyo zaytuun ayaan soo dhalinay zaytuunkan suuqa yaala anaga aan u naqaano ma aha kan waxaa la yidhahdaa jawaaf baa la yidhahdaa kan suuqa lagu gada ee zaytuunka anaga aan u naqaano ma aha zaytuunkan waxaa weeyaan min ardi shaam min alardi almubaaraka iyo meelahaasay ka soo baxaan waa saliidiisana waa daawo asagiina waa daawo waa saliid aad u barakaysan weeyaan zaytuun wa nakhlan iyo geetimireed ayaan ka soo dhalinay wa xadaa'iqa iyo beero ayaan ka soo dhalinay beerahaasoo gulban tuun waaweyn wa faakihatan iyo faakiha ayaan ka soo dhalinay wa abban iyo daaq xoolaha waxay daaqaan intaasoo dhan maxaan u soo samaynay maxaan u soo dhalinay mataacan raaxayn darteedii lakum idinka laydin raaxaynayo iyo wali ancaamikum iyo nicmoolaydiini geeliini lo-diini arigiini ayaa loo raaxaynayaa kolka adduunyadan sidaasuu ilaahay idinkugu nicmaynayaa tabaaraka wa tacaala amarkiisana ma qaadanaysaan soo nacasnimo ma aha soo dabaalnimo ma aha ilaahay maad adeecdaan oo ka cabsataan tabaaraka wa tacaala haddana adduunyadan kuma waaraysaan dulba qiyaamadii ayaa dhacaysa fiir
islamarkii qiyaamadii ayaa dhacayso فإذا جاءت هديت ماذا الصاخة قيلدي وحدة تريسي قيلدي وحدة تريسي ونفخة الثانية أفوفدي لوات وي فإذا جاءت هديت ماذا الصاخة قيلدي وحدة تريسي هديت ماذا وقيامه يوم مال أيت ماذا يفر المرء قفك كعرريه من أخيه walaalkiisa uu ka cararayo wa ummihi hooyadiisa uu ka cararayo wa abiihi aabihiisa uu ka cararayo wa saaxibatihi xaaskiisa uu ka cararayo wa baniihi caruurtiisa uu ka cararayo maalintaas ay timaado ama yowma maalin xus nabi moxamed calayhi asalaatu wasalaam yafiru lmar'u qofka uu cararayo min akhiihi walaalkiisa uu ka cararayo wa ummihi wa abiih hooyadiisa iyo aabihiisana uu ka cararayo dadkii waa kuwa dadka ugu jeclaa weeye walaalkiisuu ka cararaya hooyadiisa dhashay ayuu ka cararaya aabihiisa ayuu ka cararaya xaaskiisuu ka cararaya caruurtiisuu ka cararaya waa dadkii ugu jeclaan jiray adduunyada markii la joogay dadkaasuu ka cararaya maxaa yeelay likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday minhum kuwaas ka mid ah yowma-idin maalintaas qiyaamada ay dhacayso sha'nun sha'ni ayaa u sugnaatay sha'nigaasoo yuqniihi asaga ku filan oo deeqda likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday minhum kuwaas ka mid ah dadkaas yowma-idin maalintaas yowma-id jaa'at isaakha maalintaa qiyaamada ay timaado sha'nun sha'ni ayaa nin walba u sugnaatay sha'nigaasoo yuqniihi deeqa nin walba sha'ni deeqa ayuu haystaa nin walba sha'ni deeqa ayuu haystaa xataa ambiyada calayhim asalaatu wassalaam waxay leeyihiin nafsii nafsii rabbiyow nafsadaydi nafsadaydi ilaa nabigeeni moxamed sala allahu calayhi wasalama maahane wuxuu leeyahay yaa rabbi ummatii ummatii ilaahow ummadaydi ummadaydi sala allahu calaa sayidina moxamed meel walba ayuu nagu xasuusanayaa adduunyadaanuu nagu xasuusanayaa qiyaamahana wuu nagu xasuusanayaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh maalin buu akhriyay calayhi salaatu wasalaam in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim ilaahow dadka haddaad cadaabtid waa addoommahaagi haddaad ilaahu u dembi dhaaftidna hadda adigaa casiizu alxakiim ah iyo aayaddii kale fii suurati ibraahim rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim rabbiyow asnaamtan waxay baadiyeeyeen dad fara badan ee qofkii aniga i soo raaca ilaahu aniguu iga mid yahay kii aniga i caasiyane ilaahu gafuuru raxiim ayaa tahay labadaas aayadood markuu akhriyey calayhi salaatu wassalaam ayuu iska ooyey calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuu og yahay wuxuu nabiga la ooynayay jibriil ayuu soo diray calayhi salaam orod jibriilow nabi moxamed u tag weydii maxaa kaa oohinaya dheh isla markii jibriil calayhi salaam nabi moxamed buu u yimid sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah ilaahay baa ku soo salaamayo wuxuu ku leeyahay maxaad la ooynaysaa wuxuu yidhi ummaddeydii ayaan soo xasuustay ummaddeydii ayaan la ooynayaa jibriil wuu laabtay wuu u sheeg baa la yidhi jibriilow ummaddaadii kugu xumayn mayno waan kugu raaligelinaynaa u sheeg jibriil wuu soo laabtay wuxuu ku yidhi yaa moxamed ilaahay wuxuu ku leeyahay innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka ummaddaadii waan kugu raaligelinaynaa ku xumayn mayno yaa rasuula allah adduunyadii sidaasoo noogu murgaayay calayhi salaatu wasalaam wuu nagu fikiraayey wuu noo murgaayey sala allahu calayhi wasalam wuu noo hiloobay xataa wuu noo hiloobay maalin maalmaa ka midta ayuu yidhi ishtaqtu liaxbaabii kuwii aan jeclaa ayaan u hiloobay asxaabtu waxay yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah walaalahayga ayaan u hiloobay buu yidhi asxaabtu waxay dhaheen anaga soo walaalahaaga ma nihin mayuu yidhi idink asxaabteedii ayaa tihin laakiin walaalahayga weli ma imaanin hadda ka bacdi bay imaan doonaan kuwaas ayaa walaalahayga ah idinka laakiin asxaabteedii ayaa tihin
بل فير حتى إلى قيام الساعة كدل الدور النبي وإهلوبي عليه الصلاة والسلام هذه هلو نبي مؤقبتا عليه الصلاة والسلام نبي قاعد مؤهلو ذا عليه الصلاة والسلام سيد أهلوبي صلوات كي سنات بديسي صلي كي سنات بديسي صلى الله عليه وسلم إنات جعلاتي سنة دي سنات قد قنتت دين تي سنات فافست دين تي سنات أمة دبرتت دين تي سنات أهلقنتت سيداس آيات أهلوبي قيامها markii la gaarano waa kan waad arkaysaa ilaahu ummadeedii ayuu leeyahay ilaahu ummadeedii sallallahu ala sayyidina muhammad wujuhun yawma idin musfira dadku maalinta la waqeebay u qaybsamayaan wujuhun wajiyaalo yawma idin maalintaas musfiratun mid ifayso weeye daahikatun mid qoslayso waaye mustabshiratun mid bishaaraysanayso waaye وجوه وجيال يومئذ مالنتاس مسفرة متقفي سوايا فرحة دراديسة لإفيسا ضاحكة متقصلي سوايا وحي أركيس أو كرامة إلهية بيل قصليسا راضي أهاشد إلهي بيل قصليسا مستبشرة وبشاريسا نيسا وجيده ذي آيات بالضلالة نعمة قيمها بدن أي لبشاريسا آيان دولك الله نقدر ووجوه وجيالن يومئذ مالنتاس عليها دشيري وحا أهادي غبرة بور أيا أهادي ووجوه وجيال يومئذ مالنتاس عليها كركيري وحا أهادي غبرة بور أيا أهادي بور أيا أهادي أمسيغو ترهقها وحا دووليسو قطرة مذو أيا دووليسو ترهقها وحا دووليسو وجوه داس قطرة مذو أيا دووليسو أولئك كواس هم أجوا أنبا الكفرة كوا قالدا الفجرة فاجرين تا كواس أنبا قالا كواس أنبا فاجرين